Kalluumaysatada gobolka xeebta ee Lamu ayaa sheegaya in aysan jirin wax ka hor istaagaya in ay ka kalluumaystaan biyaha lagu muransanay maxkamadda ICJ u xukuntay Soomaaliya. Lamu oo ay ku nool yihiin in ka badan 7,000 oo kalluumaysato ah oo noloshoodu ay si toos ah uga tiirsan tahay kalluumaysiga ayaa inta badan waxa ka kalluumaystaan dhul badeedka lagu muransanaa ee ku teedsan suhdinta Kenya iyo Soomaaliya. Bishii Oktoobar 12-keedii maxkamadda ugu sarreysay ee qaramada midoobay ayaa u xukuntay Soomaaliya dhulka badeedkaasi inkastoo go'aankaasi ay Kenya gabi ahaanba diiday iyadoo ku eedeysay ICJ inay ka eexatay. Afhayeenka kalluumaysatada Lamu Maxamed Somo ayaa sheegay in dadaaladoodii ka guuleysiga dacwadda lagu soo oogay Kenya ay noqdeen kuwa aan waxba tarin. Waxaan ku sii hayn doonaa kalluumaysiga meeshii aan ka kalluumaysan jirnay maxaa yeelay ICJ waxay sameysay go'aan aan xog badan lahayn. Way iska caddahay inaysan dooneynin inay ka fiirsadaan waxa nagu dhacaya, ayuu yiri Somo. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhawaan ka horyimay xukunkii ICJ isagoo ku tilmaamay xukun aan cadaalad ahayn oo horseedaya in labada dal uu xiriirkoodu sii xumaado.